kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo xiliyadan oo kale aynu idiin soo gudbino qodobada saaxiibayaal maanta aynu idiin hayno waxa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo oo ka carooday warbixin dhawaan ka soo baxday qaramada midoobay ee looga hadlay arrimaha hubka Soomaaliya amar ayuu ku bixiyay in la baaro mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo lagu tuhmayo in hubka ka ganacsadaan musharaxiinta koonfur galbeed qaarkood oo ciidamo badan geystay magaalada Baydhabo war cusubna ka soo saaray xilliga doorashada oo markii saddexaad dib u dhacday wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo magaalada Baydhabo iyo xiisad ka taaganaya inuu idin hayna waxaad kaloo daawan doontaan khilaafka ka dhex jira guddoonka baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale cirka galay iyo hakad ku yimid kulamadii golaha shir looga hadlay xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga waxa lagu qabtay magaalada Istanbul ee xarunta dalka Turkiga u diyaar garooba saaxiibayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran oo barnaamijkan idinku soo gudbin ku soo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu ka caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka shayga aad iibinayso geli faahfaahinta shayga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawirro iyo location-ka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store markale kulanti wanaagsan daawadayaal waa talaado 3 bisha 12 ee December sanada 2018 haddii aynu ku bilowno barnaamijka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa la sheegay inuu ka carooday warbixin dhawaan ka soo baxday Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa taas oo looga hadlay arrimaha hubka Soomaaliya waxaana uu amar ku bixiyay madaxweyne Farmaajo in la baaro mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo lagu tuhmayo arrimaha ka ganacsiga hubka inay ku lug leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan gaar ah la qaatay taliyayaasha ciidamada dawladda Soomaaliya waxaana uu ka dalbaday in la baaro shakhsiyaadka ku jira dawladda ee Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ee sheegtay inay ku lug leeyihiin ka iibinta hubka shabaab qaramada midoobay ayaa dhawaan sheegtay in Soomaaliya aysan xilligan ku habooneyn cunaqabataynta hubka in laga qaado iyadoo ka digtay inuu sii socdo ka iibsiga hubka ee dhanka shabaab waxa lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay in Soomaaliya hubku si weyn u soo galo meelo kala duwan oo kaga yimaado hayeeshee badankiisa uu gacanta u galo ganacsato ka macaashay iyo waliba kooxda shabaab sida lagu yiri warbixinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in baaritaano sax la sameeyo si golaha ammaanka ay warbixin cadeymo leh ugu gudbiyaan isagoo codsaday in la dabagalo mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda ee la sheegayo hubka shabaab inay ka iibiyaan taliyayaasha ciidamada ayaa la wadaaga madaxweynaha sida aynu ku helnay xogta warbixin la xiriirta tuhun ay ka qabaan shakhsiyaad xilal sare ka haya dawladda Soomaaliya waxaana ay sheegeen inay weli wadaan baaritaano ku aadan in tuhunka la dhameystiro madaxweyne Farmaajo ayaa dadaal ku bixinaya in dawladda Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka balse arrintan ayaa fashilantay kadib markii mas'uuliyiin ka tirsan dawladda lagu eedeeyay arrimo la xiriira musuqmaasuq hub sidoo kale filla Soomaaliya ayaa u diiday mas'uuliyiin ka socday hay'ad ka tirsan qaramada midoobay inay galaan gudaha madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan qaybta keedka hubka si baaritaano loogu sameeyo warbixinta Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa waxa ku jiray in ciidamada Soomaaliya ay haystaan hub ka badan kan loo ogol yahay inuu soo galo gudaha Soomaaliya taas ayaan cadeyn u ah in Soomaaliya aysan ogoleyn cunaqabataynta hubka inuu hoggaansato sidoo kale waxa jira ganacsato Soomaaliyeed oo si weyn uga macaash hubka kula nool magaalooyin kala duwan oo ku yaal Soomaaliya kuwaas oo si sahlan hubka loogu kala gudbiyo wagaag daawadayaal qaybihii ugu horeeyay ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa warar xiisan ayay noo soo socday ka mid yihiin xaaladda koonfur galbeed gaar ahaan Baydhabo oo musharaxiintu ciidamo badan ay geysteen iyo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan halkaasi oo cirka gashay shacabka oo muujinaya walwal ah isku dhacyo in magaalada ka dhacaan balse khilaafka ka dhex jira guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar kale cirka galay iyadoo hakad uu ku yimid kulamadii golaha shirarkii golaha shacabka Soomaaliya ayaa hakad ku yimid iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka ka dhashay kala diristii guddiga maaliyadda golaha shacabka kadib warbixin muran dhalisay oo guddigan ay soo gudbiyeen guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaan isku raacin qaabka loo kala diray guddiga maaliyadda
waxaana guddoomiyaha baarlamanka oo sabtidii dib ugu soo laabtay dalka oo u arkaa arrintan mid aan sharciga waafaqsanayn waxaana uu ku taliyey in golaha lagu soo celiyo si ay go-aan uga gaaraan waxaan horumar laga gaarin kulamo xiriir ah oo saacadihii ugu dambeeyay madaxda qaranku ay la qaateen guddoomiyaha baarlamanka Soomaaliya iyadoo dhinaca kale guddoomiye Mursal iyo ku-xigeenkiisu ay isku fahmi waayeen qaabka loo wajahayo khilaafka ka dhashay kala diristii guddiga maaliyadda waxaa sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka horyaal dacwad ka dhana guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdulla Cawad taas oo dhowaan xubno ka tirsan baarlamanka Soomaaliya ay u gudbiyeen waxaana laga cabsi qabaa in go'aanka gaarista arrintan ay sii dhaliso muran xoog leh maadaama hadda la sheegayo in guddoonka baarlamanku ay isku khilaafsan yihiin kala diristii xubnaha guddiga maaliyadda iyo dacwadan loo gudbiyey guddoomiyaha baarlamanka xarunta guddoomiye Mursal ayaa noqotay mid mashquul badan kadib markii halkaas ay iska xaadiriyeen xildhibaanada mucaaradka si ay u soo jiitaan guddoomiyaha baarlamanka oo hadda u muuqda mid dhinacooda batay dhowaan warar soo baxay waxay sheegeen in guddoomiyaha baarlamanka iyo madaxtooyadu ay isla meel dhigeen qaabka loo wajahayo khilaafka ka dhex jira golaha baarlamanka ee sababay inay baaqdaan kulamadii baarlamanka ha yeeshee guddoomiye Mursal ayaa la sheegayaa inuu ka biyo diiday talooyin ay soo jeediyeen ku-xigeenadiisa iyo ra'iisul wasaare Kheyre dhanka kale xildhibaan Cabdiqaadir Cusuble oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida weyn u dhaleelsan xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre waxa uu sheegay in xukuumaddu si weyn faragelin ay ugu hayso arrimaha baarlamanka kulamadoona inay qabsoomi waayaan ay sabab u tahay waxa uu sheegay inay jiraan qorshooyin lagu kala dirayo baarlamanka taasina ay caqabad ku tahay nidaamka dawliga isagoo si weyn u weeraray xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre waxa uu la kulmay guddigii iyo baarlamaanka oo dhanba dagaal oo runtii aada u foolxun oo xoolo lagu bixinaayo handadaad lagu daraayo dadka qaar la handada sida cadaab ay ka tilmaameen xubnihii guddiga qaar ka mid ah oo wax walba ah sida guddigaasi warbixintiisa loo baabi'in lahaa isaga loo burburin lahaa haddii baarlamaanka uu isku dayo inuu hor istaagana baarlamaanka naftiisa loo burburin lahaa weli waxaad daawanaysaan barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad haddaynu eegno koonfur galbeed musharaxiinta xilka madaxweynaha maamulkaasi qaarkood ayaa ciidamo badan geystay sida lasoo sheegayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaana ay war ka soo saareen xilliga doorashada madaxweynaha maamulkaas oo markii saddexaad dib loo dhigay saddex ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay ka soo horjeedaan dib u dhaca saddexaad ee lagu sameeyay doorashada madaxweynaha maamulkaas musharaxiintan oo ka mid yahay Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa si cad uga soo horjeesta arrintan waxaana ay sheegeen inay sameyn doonaan olole ku aadan doorasho laga soo hordhigo waqtiga loo qabtay waxay sidoo kale ku baaqeen in magaalada laga saaro ciidamada dawladda Soomaaliya ku soo daadgureysay isla markaana lagu sheegay in sugi doonaan amniga doorashada waxa ay ku doodeen musharaxiintani Baydhabo inay joogaan ciidamo ku filan ilaalinta amniga goobaha doorashada iyo guud ahaan magaalada Baydhabo dhinaca kale xaafadaha magaalada Baydhabo waxa lagu arkay ciidamo aan hore u joogin isla markaana la sheegay in la yimaadeen qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed ciidamada ugu badan Baydhabo waxaa la yimid sida la soo sheegayo wadaadka Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ka mid ah musharaxiinta ugu saameynta badan shacabka deegaanada koonfur galbeed Roobo oo ciidamo badan ay u joogaan gobolka Bakool ayaa qaarkood keenay magaalada Baydhabo si amnigiisa u ilaaliyaan maadaama laga baqdin qabo qalalaasa magaalada Baydhabo inay ka dhacaan dawladda dhexe Soomaaliya ayaa ku cadaadisay marar badan Mukhtaar Roobo inuu ka tanaasulo musharaxnimada madaxweynaha maamulkaas shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa ka cabsi qaba isku dhacyo dhaxmara ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa musharaxiinta qaarkood saacadihii ugu dambeeyay halkaas ay geeyeen وهجاج داود يال ولي برامج كريمة سياسة ورقات أيين كوجد جرنا قيبيه دمبي نسلس وقارني شر لوجه اللي وناجين تحرير كصومالية يتركيا أيال لجسوا قبل مقالة إسطنبول يا حرون تدلك التركيا وحنا كقيب قال مسؤولين كلا دونا وكتر سدولاد الصومالية يقون يهنو شركة مدلبة معلنا السعودي وحلوجه اللي حوجين تحرير كدلك الصومالية تركيا وحنا سجارة ديرد اللوجو ساري علم بارس لحريرتا دينعا دقالها عافمادكا iyo waxbarashada
dowladda Soomaaliya ayaa shirkaasi waxa uga qayb galay wasiirka qorsheynta, wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo danjiraha Turkiga u qaabilsan Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ka qayb galay aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah ardada wax ka barata halkaasi. waxaa sidoo kale dhanka Turkiga kaga qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo cilmi baarayaal iyo aqoon-yahan ay ka mid yihiin. danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya Jamaal Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in shirkani muhiim u ahaa dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, isla markaana looga hadlay qodobo kordhi kara saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Turkiga. shirkan waxaa soo qaban qaabisay hay'adda East Africa Research Development ee fadhigoodu yahay magaalada Istanbul, waxaana dadka ka qayb galay isla garteen in la joogteeyo kulamada noocan ah si loo xoojiyo xiriirka wadamada Soomaaliya iyo Turkiga. dowladda Turkigu waxay ka mid tahay dowladaha saaxiibka dhow la ah Soomaaliya, waxaana ay tababartaa ciidamada Soomaaliyeed iyadoo Muqdisho ku yaal saldhigga ugu weyn ee meel ka baxsan wadankeeda laga dhisay. guud ahaan daawadayaal waa naga intaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad. intaaynu mid lamida berito ku kulmayno, nabadgelyo. ku soo dhawow warqaad press. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share garee. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaallo cusub. fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga. aad baad u mahadsantahay.